دراسة شدعاء فقك لا معنى وهيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن داوديال كسر دوادا برنامج كترتنا قناة كدوكسيدا سري قبل كبنادر التلفزيون كسوم نيوز تي في oo galay wareegiisa saddexaad labada iskuul ee ku madlan waxa ay kala yihiin Daarul Irshaad iyo Al Irshaad waxay qayb ka ahaayeen 32 iskuul oo ka qayb galaysay tartanka waxaana nasiib ay u yeesheen in wareegga saddexaad ee tartanka is aragooda ay is arkaan labadan iskuul ee kala ah Al Irshaad iyo Daarul Irshaad. tartanka waxaa taabagelinaya Dahabshiil Group halka su'aalo diyaarintu ay tahay jaamacadda Al Imra International University. alaaba tartanka inta aanan bilaabin labada iskuul waxa aan ka codsanaa in min hal arday halkan ay usoo dirsadaan si aan u xaqiijino cidda su'aasha ugu horeysa nasiibka u yeelan doonta. labada iskuul ee kala ah Daarul Irshaad iyo Al Irshaad waxaan ka codsanaynaa min hal arday halkan in ay usoo diraan labada number ee halkan yeelana inay kala qabsadaan si aan u xaqiijino cidda su'aasha ugu horeysa nasiibka u yeelan doonta. su-aasha ugu horeysa ee tartanka waxaa nasiib u yeeshay in la weydiiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad. su-aashu waa su-aal diini ah, dhagaha fura. sheega Nabi Ibraahim aabihii magaciisa. sheega Nabi Ibraahim aabihiis magaciisa. mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare Al Irshaad. sheega Nabi Ibraahim aabihiis magaciisa. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. waa hagaag daawadayaal su-aashii ugu horeysay ee tartanka ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad waxa ay sheegeen in jawaabta aanay haynin. sidaa darteed maadaama aanay ka jawaabin oo si toos ah ay usoo wareejiyeen waxay kusoo wareegaysaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad. bismillah magaca waa Yaxya Xasan oo ka socda iskuulka Daarul Irshaad. su-aashaas walaalaheen soo hareermartay aan ka jawaabinaysaa Zara. su-aashan waa ayd su-aal soo hareermartay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad. iminka si ka faa'iideysaan u hortaalla ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixeen saxiix qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysahaan ugu soo gudubtay iskuulka Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, hal dhibic ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. su-aasha xigta waxaa iska ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad dhagaha fura. su-aashu waa su-aal diini ah. waxaad sheegtaan Nabi Muuse aabihiis magaciisa. mar kale aan ku celiyo waxaad sheegtaan Nabi Muuse aabihiis magaciisa. mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad. sheega Nabi Muuse aabihiis magaciisa. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. Show
الله مقعوا عبد الرحمن عبد الله أهنا ترتم اسكول دار الرشاد سؤاشينا لويدي هدي أنك جواب علنا إن شاء الله وحنا قنيسة عمران su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee daarulishaad jawaabtii ay ka bixiyeen saxay qalad guddiga su-aasha labaad ee barnaamijka ahaydna su-aashii koowaad ee la weydiiyey iskuulka daarushaad diinin ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa baraawo 2 dhibcood ka qaata Somtal iyo Dahabshiil Group su-aasha xigta waa su-aal suugaana waxaa leh ardayda dugsiga hoose dhexe sare Al Irshaad maxaa loo yaqaanaa libaaxa labka ah maxaa loo yaqaanaa libaaxa labka ah mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad maxaa loo yaqaanaa libaaxa labka ah waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan magacaygu Sabriin Qadar Daawud oo ka socota tartamayaasha iskuulka Al Irshaad su-aasha isku dayo R su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen saxay qalad guddiga su-aashii labaad ee suugaanta ee la weydiiyey iskuulka Al Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa baraawo 2 dhibcood ka qaata Somtal su-aasha xigta waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad maxaa loo yaqaanaa libaaxa dhadiga ah mar kale aan ku celiyo maxaa loo yaqaanaa libaaxa dhadiga ah mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad maxaa loo yaqaanaa libaaxa dhadiga ah waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad haleeli doontaan anigu magacayga Sabriin Maalis Macaan arday tartamay iskuulka Daarushaad jawaabteeda isku day waxay noqon doontaa gool su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen saxay qalad guddiga su-aasha la weydiiyey iskuulka Daarushaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa baraawo 2 dhibcood ka qaata Somtal su-aasha xigta waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad waa su-aal juqraafi ah dhagaha fura sheega webiga adduunka ugu dheer sheega magaca webiga adduunka ugu dheer mar kale aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad sheega magaca webiga adduunka ugu dheer waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan
bismillaah annagoo ah tartamayaasha iskuulka Al-Irshaad su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa webiga Niil. su-aashaas oo ahayd su-aal juqraafi ah la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad jawaabtii ay ka bixineen saxiix qalad guddiga. su-aasha shanaad ee barnaamijka ahaydna su-aashii saddexaad ee la weydiiyey iskuulka Al-Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, 2 dhibcood ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad dhagaha fura waxaad sheegtaan webiga labaad ee adduunka ugu dheer. mar kale aan ku celiyo waxaad sheegtaan webiga labaad ee adduunka ugu dheer. mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad sheega webiga labaad ee adduunka ugu dheer magaciisa. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. bismillaah magaca waa hodan bare kana socota tartamayaasha iskuulka Daarushaad su-aashaas haddii aan ka jawaab celin jawaabteedu waxay noqonaysaa insha Allah Amazon. su-aashan oo ahayd su-aal juqraafi ah la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixineen saxiix qalad guddiga. su-aasha lixaad ee barnaamijka ahaydna su-aashii saddexaad ee la weydiiyey iskuulka Daarul Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, 2 dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. su-aasha xigta waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad waa xisaab dhagaa fura sheega 2 tiro oo dhaban ah oo isku xiga wadartooduna tahay 146. mar kale aan ku celiyo sheega 2 tiro oo dhaban ah oo isku xiga wadartooduna tahay 146. mar kale aan ku celiyo dhagaa fura sheega 2 tiro oo dhaban ah oo isku xiga wadartooduna tahay 146. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. bismillaah anoo magacayga maxamed daar xasan oo ka socda tartamayaasha iskuulka Al-Irshaad su-aasha jawaabta haddaan isku dayo waxay noqonaysaa 22-24. su-aashan oo ahayd su-aal xisaaba la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad jawaabtii ay ka bixineen saxiix qalad guddiga. su-aasha toddobaad ee barnaamijka ahaydna su-aashii afraad ee la weydiiyey iskuulka Al-Irshaad xisaabtan ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, 2 dhibcood ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad waa su-aal xisaab ah waxa aad raadisaan 2 tiro oo kisi ah oo isku xiga wadartooduna tahay 136. mar kale aan ku celiyo raadiya 2 tiro oo kisi ah oo isku xiga wadartooduna tahay 136. mar kale aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad raadiya 2 tiro oo kisi ah oo isku xiga wadartooduna tahay 136. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan.
su-aasha jawaabteeda isku day waa 67 iyo 69 su-aashii xisaabta ahayd ee la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga su-aasha sideedaad ee barnaamijka ahaydna su-aashii afraad ee lagu weydiiyey iskuulka Daarul Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, 2 dhibcood ka qaata Somtel. waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee telefishinka Som News TV. tartanka waxaa ku madlan oo wareegii saddexaad ku hardamaya dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad iyo dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad oo qayb ka ah 32 iskuul balse wareegii koobaad iyo kan labaad ka soo gudbay wareegii saddexaadna ku hardamaya. su-aashu waa su-aal fiisigiisa waxaa leh ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad dhagaha fura sheega halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro dhererka. mar kale aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad sheega halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro dhererka. sheega halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro dhererka. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. sabriin qaar daawad oo ka socota tartamayaasha iskuulka Irshaad hadda su-aashan jawaabteeda isku dayo mitir. su-aashan waa su-aal la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii aan iraahdee su-aashan waa su-aal la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha shanaad ee dhankooda la weydiiyey iskuulka Al Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, 2 dhibcood ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad waa su-aal fiisigiisa waxaad sheegtaan halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro waqtiga. waxaad sheegtaan halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro waqtiga. ma saddexaad aan ku celiyo waxaad sheegtaan halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro waqtiga. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan.
بسم الله مقعيق وصبري ما هذا اسمه أنا أرتيت وترتمي سكولك دارشات سؤال جوابتي تسكت إن هناخد عند السكن سؤال شرعي سؤال فيزيكس الويديا ده دكتور صدح السر دار الرشاد جوابتي كبيعين ساكن فيديو سؤال فيزيكس جوابته ay ka bixiyeen iskuulka Daarushaad waa bisaxa bravo laba dhibcood ka qaata Soomaaliyeed abshil group سؤال حتى وسؤال بيولوجيا وحال أرض دكسي أو سدح السر الشهد دقام فرع هدي جد درر لقطة على ميت علن هدو موجز كدلا شدودو محون قندونا مركلا أنكو عليو هدي جد در لقطة على ميت علن هدو موجز كدلا شدودو محون قندونا mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad su'aashu waa biology dhagaha fura haddii geed dheer lagu tallaalo mid cilin ah hiddo-muujiska dhalashadoodu muxuu noqon doonaa waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan annagu wax tartamayaasha iskuulka Al-Irshaad haddii aan isku dayno su'aashaas jawaabteedu waa keedaas dhammaantood waxa ay noqonayaan dheerar su'aashan waa su'aal biology la weydiiyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare Al-Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen sax kala guddiga su'aasha la weydiiyay iskuulka Al-Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada iminka si ka faa'iideysaan waxay hortaala ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad ka faa'iideysigu waqti ma lahan ترتمي سكولك دارشات سؤال جوابتي تسكت إن صباح جيت علنا su'aashan waa su'aal la weydiiyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad soo martay iminka si ka faa'iideysaan hortaala ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii iyana ay bixiyeen sax kala guddiga su'aasha ka faa'iideysaan lagu soo gudubtay iskuulka Daarushaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalada haddii labada iskuul ay soo martay waxaa ka jawaabida su'aashaas laga sugayaa jaamacadda Al-Cimra su'aashii la weydiiyay iskuulka Al-Irshaad aysan ka jawaabin ka faa'iideysaan lagu gudubtay dhigooda iyaguna iskuulka Daarushaad aysan ka faa'iideysan su'aashuna ay ahayd su'aal biology jawaabtu waxay noqon su'aashana ay ahayd su'aal biology oo una dhigneed sidan haddii geed dheer lagu talaalo mid cilan ah hiddo-muujiska dhashoodu muxuu noqon doonaa jawaabtu waxay noqonaysaa hal islaash dheer iyo sidoo kale hal islaash labo cilin ah waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda inaad fahanteen su'aasha xigta waa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad dhagaafur waa su'aal biology ah haddii la isku tallaalo atar dheer oo bacrimin isku jaad ah iyo atar gaaban oo bacrimin isku jaad ah haddaba hiddo-muujiska dhalashadooda muxuu noqon doonaa mar kale aan ku celiyo haddii la isku tallaalo atar dheer oo bacrimin isku jaad ah iyo atar gaaban oo bacrimin isku jaad ah haddaba hiddo-muujiska dhalashadooda muxuu noqon doonaa waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda insha Allah inaad haleeli doontaan Hey
bismillaah magacaygu waa Axmed Nasir Yuusuf kana mid ah tartamaha iskuulka Daarshaad Primary Secondary School su-aasha jawaabta hadda isku dawaa 3 geed oo dheer iyo 1 geed oo gaaban su-aashii biology-geeda ee la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen sax qalad guddiga su-aasha 12aad ee ahaydna su-aashii 6aad ee la weydiiyey iskuulka Daarul Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah iminka si ka faa'iideysaan waxay u hortaa la ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Irshaad ka faa'iideysigu waqti ma lahan bismillaah anoo magacayga yahay maxamed daar xasan oo ka socda tartamayaasha iskoolka Irshaad su-aasha jawaabta hadda isku day waxay noqonaysaa 2/2 su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad soo hareer martay iminka si ka faa'iideysaan u hortaa la ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen sax qalad guddiga su-aasha ka faa'iideysaan ugu soo gudubtay iskuulka Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah labada iskuul haddii ay soo hareer martay waxaa ka daawadayaasha iyo ka qaybgalayaasha jawaabta ay ka dhow sugayaan waa jaamacadda Al-Cimra su-aashii 12aad ahaydna su-aashii 6aad ee la weydiiyey iskuulka Daarul Irshaad aysan ka jawaabin ka faa'iideysaan ugu gudubtay dhigooda iskuulka Irshaad iyaguna aysan ka faa'iideysan ahaydna su-aal biology haddii aan jawaabteeda raaciyo waxay noqonaysaa dhammaantood waa ay wada dheer yihiin waxaan filayaa su-aashaas inay meel ku xarladeen ka qaybgalayaasha daawadayaasha mar kalena aanay ilaabi doonin su-aasha xigta waa su-aal chemistry ah dhagaha fura waxaa iskale ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad neef muggeedu ahaa 500 oo mililitir cadaadiskeeduna ahaa 700 milimitir ayaa cadaadiskii laga dhigay 750 mililitir haddaba raadi mugga soo baxaya mar kale aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad neef muggeedu ahaa 500 oo mililitir cadaadiskeeduna ahaa 700 oo milimitir ayaa cadaadiska laga dhigay 750 mililitir haddaba raadi mugga soo baxaya mar saddexaad aan ku celiyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad neef muggeedu ahaa 500 oo mililitir cadaadiskuna ahaa 700 oo milimitir ayaa cadaadiska laga dhigay 750 milimitir haddaba raadi mugga soo baxaya waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan annagoo ah tartamayaasha iskuulka Al-Irshaad su-aashaas jawaabteedu waa 1,050 mililitir jawaabtii ay bixiyeen ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad sax qalad guddiga su-aashii 7aad ee dhankooda ugu dambeysay la weydiiyey iskuulka Al-Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah iminka si ka faa'iideysaan waxay u hortaa la ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad waa Sabriin Macalin arday tugtay iskuulka Daarshaad su-aasha jawaabteeda isku day 535 su-aashan oo ay su-aal soo hareer martay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Irshaad iminka si ka faa'iideysaan u hortaa la ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad iyana jawaabtii ay bixiyeen sax qalad guddiga su-aasha ka faa'iideysaan ugu soo gudubtay iskuulka Daarul Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen iyaguna mid qalad ah labada iskuul haddii ay soo hareer martay su-aashu waxaa jawaabta laga sugayaa jaamacadda Al-Cimra su-aashii la weydiiyey iskuulka Al-Irshaad ee su-aashii 13aad ahaydna su-aashii 7aad ee la weydiiyey dhankooda ugu dambeysay aysan ka jawaabin ka faa'iideysan ugu gudubtay dhigooda iskuulka Daarul Irshaad iyaguna aysan ka faa'iideysan haddii aan jawaabta raaciyo waxay noqonaysaa 466.7 ml waxaan filayaa labada iskuul ka qaybgalayaasha daawadayaasha in meel ay ku xardadeen mar kalena aanay ilaabi doonin su-aasha xigta
waxaa iska ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad. waa su-aashii ugu dambeysay ee tartankeena waa su-aal chemistry ah. waxay su-aashaan ku celiyo mar dhagaa probal haddii cadaadiska 2 litir oo neef ahi uu ahaa hal atom meeqa ayuu noqonayaa marka mugga laga dhigo 0.8 litir. mar kale aan ku celiyo haddii cadaadiska 2 litir oo neef ahi uu ahaa hal atom meeqa ayuu noqonayaa marka mugga laga dhigo 0.8 litir. mar saddexaad aan ku celiyo haddii cadaadiska 2 litir oo neef ahi uu ahaa hal atom meeqa ayuu noqonayaa marka mugga laga dhigo 0.8 litir. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad heli doontaan. bismillaah magacu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi ahna tartama iskuulka Daarushaad Primary and Secondary School. su-aashiina la weydiiyay haddii aan ka jawaab celiyo insha Allah waxay noqonaysaa 2.5 atom. su-aashan oo ahayd su-aal chemistry ah la weydiiyay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha chemistry-ga la weydiiyay iskuulka Daarul Irshaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo 2 dhibcood ka qaata Somtel. haddaba guud ahaan 14 su-aal ee min 7 su-aal ahayd ee la weydiinayay labada iskuul ee kala ah Daarul Irshaad iyo Al Irshaad halka ay ku soo idlaadeen waxay qayb ka ahaayeen wareegga saddexaad ee tartanka. haddii aan mid ka mid ah iskuulada sii sagootinayno oo aan macsalaameynayno iyo haddii tartanka wareegga xiga ee semifinalka ah uu u gudbay mid ka mid ah iskuulaadka iyo haddii tartanka halkiisa aan ka sii wadi doono waxaan ka dhursugnaaba waa Xamdi Faarax Ismaan. aad baad u mahadsantahay xasan. qeybaha dambe ee barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ayaan isla soo gaarnay. waxaa maanta halkan ku tartamaya iskuulaadka Al Irshaad iyo Daarul Irshaad. haddii aan ku hormaro iskuulka Al Irshaad waxaa la weydiiyay 7 su-aal waa su-aale ay xaqa u lahaayeen. waxa ay ka jawaabeen 4 su-aal 3 ka mid ah waa ay qaldeen. waxaa ka faa'iideysan ugu soo gudubtay hal su-aal oo ay ka faa'iideysan wadarta guud dhibcaha haystaan waa 8. sidoo kale iskuulka Daarul Irshaad iyaguna waxaa la weydiiyay 7 su-aal waa su-aale ay xaqa u lahaayeen. waxay qaldeen hal su-aal. waxaa ka faa'iideysan ugu soo gudubtay 3 su-aal oo mid ay ka jawaabeen wadarta guud dhibcaha haystaan iyaguna waa 13. waxaan filayaa inaan sii sagootinayno oo aan macsalaameynayno ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad. waxaan dhanka semifinalka tartanka usii sagootinaynaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad oo waqtiga iyo waayuhu ay u heliyeen. labada maamul ee iskuulaadka ayaan siin doonaa kadibna tartankeena waa aan soo gabagabaynaynaa. aan ku hormaro maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. إلهي سبحانه وتعالى أسقى مهسن. tartankii maanta meesha ka dhacay ma sha Allah waxaan u hambaliyeynayaa iskuulka inaga soo horjeeday ee Daarul Irshaad guusha ay gaareen. waxaan leeyahay guusha aad gaarteen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin sii gudbiyo finalkana ku guuleys Allah idin ka dhigo. annagana guuleysiga nagala guuleystay waan ku qanacsanahay. Assalaamu calaykum. aad buu u mahadsan yahay maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Al Irshaad oo ardaydiisu halkan ay ku soo bandhigeen aqoon balse waqtigii waayaha uu ka heliyay. iminka waxaan ku soo dhaweynayaa macalinka matalaya dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad. alxamdulilah suma alxamdulilah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Aftaax Maxamed Mahad ahna wakiil ka socda dugsiga hoose dhexe sare ee Daarul Irshaad. allah ayaa mahad iska leh allihii madashan nagu kulmiyey. waxaa kaloo mahad celinayaa taabageliyaasha tartanka Tahabshiil Group
iyo jaamacadda soo diyaarisay su-aalaha alcimra. waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa wariyaasha ku hoolan inay tartankaani si habsami leh u socdo. waxaan halkaani u hambalyeynayaa walaalaha dugsiga al-irshaad oo nasiibka ka hiiliyay maanta. halkaani laguma kala harin wax aqoon ah, laakiin waxaa ka hiiliyay oo keliya nasiibka. sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda iskuulka daarurshaad. waxaan leeyahay guul wacan, hore sii socda insha allah. guud ahaan intaa ayaan kusoo afmaraynaa tartanka. intaa tartanka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa guud ahaanteena oo isku duuban sidaas nabadgelyo. amaana allah. bara afkaaga bilowinkaada bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri. bara afkaaga bilowinkaada bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri. ba'ta jaxa khada ra'sa shada'aga faqa kala ma'na wahay